Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, Nabad, Jum'ah Mubarak. Hello, everybody. This is Dr. Hoden coming to you today to talk about some 5 myths, and there's more of them about the COVID-19 vaccine. I hope it's good for Antin Kuliyin. I hope you guys are doing well. For all the new followers, thank you for joining. I do speak English and Somali to help both all of our communities to be on the same page on their health and wellness. So, waxaan ka hadlayaa maanta shan wax oo war been runtii laga sheegayo vacciinka. So shan wax aan doonaya calaamadood aan ogaatiin oo vacciinka laga sheegayo uu dadka dhibaato u keeni karo laakiin runkan wax kama jirto. So the 5 myths are the first one is the COVID-19 vaccine will give you the disease. So vaccine haddaad qaadatid cudurkii COVID-19 ayaa kugu dhacaya. So taasi waa mid khalada. That's not true. So assalamu alaikum everybody. Welcome. It's good to see you guys. I hope you guys are doing well. We're talking about the 5 myths of the COVID-19 vaccine. So one of the things that people are spreading is if you get the vaccine, you'll get the disease. That's not true. So cudurkii kuguma dhacay hadaad vaccine qaadatid. The whole point of the vaccine, and we've talked about it before, is that it helps to build your immune system. That's what helps you fight off infections. So it knows how it's been exposed to the virus. It knows how to fight it if it's exposed again, if you're exposed again. So wuxuu ka caawinaya jirkaaga in la dagaaltamo cudurkii, jirkaagu baraysa loo dagaaltamo hadduu markuu jirkaaga waxaa la yidhahdaa immune system oo la dagaaltamo cudurada waxay sameeyaan waxaa la yidhahdaa antibodies oo xasuusta sida loola dagaaltamo wixii cusub uu jirku la kulmo. So it helps in build those memory cells and antibody cells and to help you fight off the infections or whatever the vaccine is helping to deal with, and that's why you get the flu vaccine. So that's why flu vaccine ka la qaato. And so dad baa odhanaya too that degdeg baa loo sameeya. People are also saying the myth of the vaccine is that it's made too quickly. But remember, science isn't something that's never, never stops. People are always learning and growing. And so the information they built these vaccines on is based on years of research. So especially from SARS that happened in early 2000s. So degdeg baa yidhahdaan vaccineka loo sameeyey laakiin ogow science maalin kasta wax baa la baranaya diintiina ka mid tahayna wax barana maalin kasta wax cusub. So dadkii scientiskii dhowr iyo 10 sano ka hor oo bilaabay inay la dagaaltamaan cudurkii viruskii SARS-kii ka hor bilaabinkii in the 2000skii ayay informationkaasi wixii ay barteen ayay kusii dareen maanta markay isu yimaadeen oo degdeg isula sameeyeen. Yes, degdeg waa loo sameeyey laakiin waxaa lagu sameeyey wax oo mustaqbal cimri lagu bartay dhowr sano ka hor badan. So it's research information that they learned years before that they created this vaccine. So it's just not just made so quickly, but it's made because it's we have that information and that people shared it and worked together as a team. And dad badan baa isla shaqeeyay oo waxay cimligii isla waxay ayagu barteen ayaguna dad kale u sheegeen wax badan bay ka faa'iideysteen markay cimligii dadku isu sheegeen. So it's really important to share information. That's why I'm here. So thank you kulligiin oo dhan for joining, that you understand some of these things that are being said. You always make the decision yourself if you want this vaccine, but please know the myths first. That's the whole point. Just don't ni sheega that vaccine ka adiga xoriyadaada cidna kaa qaadi karta ma jirto. Adiga dooran karta hadaad vaccine doonaysid, but always waxaa fiican inaad ogaatid wixii run ah iyo wixii dadku iska samaysanayaan. So wixii science-kii dadkii wax barteen iyo wixii dad kale ay kusii darayaan inaa la kala ogaado weeyaan. And aniguna nima sheegay inaad qasab qaadatiin noloshiina idinkaa go-aanka gaaraya. So I'm not telling anybody they have to take this vaccine. It's important that you understand the benefits of it, but you make that final decision, personal decision on your own. So we talked about it was made, people say it's made too fast. Not true. It's made because of the years of research. We made it because that you're not going to get the virus, right? So that's the two ones that we've taken. The other one is vaccine, is that people that take it, they will not be able to have be pregnant. So waxaa jira dad baa lagu yidhi cudur hadday vaccineka qaadaan hadduu cudurkii laga badbaadinayo dan wax ma dhali kartid ka bacdi dad qaadatid. Taana run kama jirto. So it does not help you
does not help us to think that we cannot have any more children because we take this vaccine. That is not true. The other myth is that people are also saying that the vaccine will only it'll all work just with one shot. So لكن vaccine كأنها لبا طلال ويان. The vaccine requires 2 injections. So labada طلال إنها قاعدة ويان. So إنه the protection كودن وفعند إنها تهشد. So in labada vaccine كأنها قاعدة ويان. So you've got to take the 2 shots of the vaccine to really make sure you get the true great benefits of it. And cudurka kama hadda vaccine qaatay cudurka kuguma dhacayo. So wuxuu caawina jirkaaga la dagaaltamo. So taas aan doonay inaan insha Allah niif iga faa'iidatiin inuna go-aankiina gaadhiin anugu dhakhtaradiini baa inaan caafimaadkiina iyo cimrigii aan anugu ognahay inaan nii macnayno idinkuna hadhowna in adigu naftiina ka fakartiin. So sidaad adigu dhakhtarintiina gooni aad la sheekaysan kartiin, su'aalo weydiin kartiin. So it's really important that you discuss with your own doctor if you what are your risk benefits of taking this vaccine. It's really important if you have an allergic reaction to vaccines before, and if you put them, like you take an EpiPen and you have to take it with you. So if you have really bad allergies, take your EpiPen with you. If you're going to take the vaccine, make sure you let people know that you have a history of allergies so they can better watch you. That's why they watch you for 20 minutes after you get the injection. So we're muhim that in markaad adigu aad u sheegaysid dad haddaad allergic reaction ku dhacdo oo jirkaaga wax diiday in khasab aad qaadatid waxa la yiraahdo EpiPen oo reactionkii kaa joojinaya aad noloshaadu aad meel kasta u socotid aad wadatid dadka u sheega vaccine ku siinaya. So qof kastaba waxaa la daawadaa 20 minute oo la eega jirkiisii sidoo uu la qabtay oo vaccine-ka ku dhacay vaccine-kii qaatay. Dad baa xumad ku dhaca. People can have side effects of all vaccines like fever. That's normal. It's your body learning how and your immune system working how to react to this. And then waxaa jira dad it's normal inaad xumad haday kugu dhacdo because jirkaagii baa la dagaaltamaya wixii uu baranaya siduu si fiican u dagaaltamo. Xumad dhibaato ma aha. Dadku waxay moodayaan that vaccine-ka ii keenay waa wax xun haddii saa ku dhacdo may. That means vaccine-ka wuu shaqaynaya. Haddaad dareentid daal, haddaad dareentid meeshii oo talaalka lagaga sameeyay gacantii oo aad dareemaysid xanuun oo halkaasi dhibaato maaha. Taasi way la socotaa. Dawo kasta qaatid waxbaa la socda aad ogaanaysid oo kugu dhici karaan laakiin taasi wax ay cajiib cusub ma aha. So it's normal to have the body aches, normal to have the fevers. If you get the vaccine, you get that with all types of vaccines. You can take Tylenol if you want for the xumada haddaad doonaysid. Dad baa yidhaahda just iska ogolo xumada keligiis iska tago oo jirkaaga la dagaaltamo. So intaasan doonay inaan nii sheego that waxaa jira dhowr kala nooc waa Moderna and Pfizer. You do your research, learn about the different vaccines and how they have been developed. They're effective 95 to 94%. So ogaada baro laakiin just haddaba cararna hadalaha oo dadka ka nixinaya oo ka warwarinaya. So it's important to do your own research. Don't run after the stories that make people scared and worried and nervous. This is something new. We're dealing with this, but the research so far is benefiting what they've done. But know that there's still a lot of research that still needs to be done, and so you make the decision on your own, and it's your personal decision of whether you get it or not. Those that are high risk and healthcare workers, I'm sure you've seen a lot of people posting about their experiences, so take that into account as well too, and hopefully we'll get to know more as more people get it, and inshallah we'll get through this COVID experience together. I hope you are all protected. عافيمات بني رجينا كلنا ودان. And جمعة وناكس جمعة مبروك. السلام عليكم. Bye bye.